mid ka mid ah beelaha deegaanka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa duleedka magaaladaasi ku soo bandhigay hubiye ciidan xoogan kaas oo ay qorsheeyeen inay uga qayb qaataan wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab oo dhawaan la filayo inuu ka bilowdo deegaanada Galmudug. Yabar dhowr ka ku muujisay bandhigooda kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay abaabulkooda ka socday deegaano hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb. qaar ka mid ah odayaasha iyo horjoogayaasha beeshan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka dagaalka dawladdu sheegtay in wajigiisa labaad ka bilaaban doono Galmudug. ninkii shabaab duulankiisa wada ayaa annaga adeerkeen ama macallinkeenina ah ayadaanu diyaar u nahay hor baanu ugu ahayn hadeer baanu u nahay qalabkaanu u wadanaa halkaan ciidanka dhooban ee beesha yabar dhowra kace ee qalabka aad arkaysaan wadata annaga dawladdu nama siin qalabkan siyaasina nama siin waxaanu ka gadanay xoolaha yaga cadawga inaanu isaga difaacno oo dalkayaga iyo diintayada midna aan la nasaqin ee cadawga nagu soo duulay ee al-shabaab aanu uga hortagnaanu u gadan haddana waanu sii badin doonnaa intaani waxba ma ahan waa ku dabar jaraynaa haddii ilaahay idmo waxaan rabnaa qaylaqaad baanu nahay qayla raac baanu nahay cadawga shabaab baana dhibay waan dhaqan weynay waanu hoyan weynay waa la gumaaday ilmihii iyo agoomihii iyo raadkii ka haray waxaad og tihiin dadkaani dad haraadi ah oo xabad hambadeeda weeye aaqir shabaab baa wuxuu go'aansaday inuu inta kalena israacsho laba asbuuc ka horteed geedahaas muuqduu ku laayay dawlad ma aynaan helin taakula kale ma aynaan helin ee qabiilka yabar oro kace ee shacabkiisa ku taxalluqay haddana sidii u hor taagan qaylaqaadka aanu nahay waxaanu u soo qaylo qaadnay madaxweyne xasan sheekh cadawgana haysta ee lagu dhawaaqay inay dawladdu nala dabar goyso horna aanu diyaar ugu ahayn waxaan rabnaa waa ku garab taagannahay waana ku wareernay waa qarribanna dawladuna naguma taakullayso waxaan rabnaa geedka uu ku jira cadawgu in dawladdu nooga bixiso annagaa raad raacayna yabar kace kuwii jahaadka ku dhintay iyo qawaarista ilaahay ha u naxariisto rag iyo dumarba sidaanu ognahay waa nooga dhinteen ilaahay ha u naxariistaan mar labaad leeyahay walaalayaal waxaan idin leeyahay yabar kacow adinkuna adinkoo kor u qaadaya aamin dhaha dadkii ku dhintay yabar kacay dadkii soo halgami jiray iyo kuwa ku dhaawacmay inta markay ka soo harto waxa weeye dadka deegaankan jooga waa is yaqaanaa waa lees ayay yaqaanaa qof walbaaba wuxuu mudan yahay iyo ayatiinkiisa iyo abtirsigiisa qof walba waa lees garanayaa ma garad waxaan u maleynayaa waa lees garanayaa annagu haddaanu yabar kacannahay oo beesha cayr aanu nahay yabar kacana nahay cayr ka leexata qof walbaaba waa garanayaa waxaanu ku sugannahay kow baan nahay kow gacanta koobaad baan nahay gudoomiyaha gobolka Galgaduud iyo senator Cabdixakiin Macalin Axmed oo ugu dambeyntii goobtan ka hadlay ayaa ciidamadan u jeediyay dardaaran guud iyagoo tilmaamay inay marka hore niyadooda hagaajiyaan sidoo kalena ay u diyaar garoobaan wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab kaasi oo ka bilaabanaya bariga gobolka Galgaduud inay soo gabagabeeyaan ama wareegga ugu dambeeyay ka qayb qaataan ayagoo yaqaanay dhaqanka la dagaalanka qawaarijta intaan u jeedin maanta meeshan fadhida waa hambadii dadkii walaalahooda ahaa ee ka xoreeyay waddankan ka haray ciidankan meesha jooga maanta waa ciidan yaqaana la dagaalanka iyo ciribtirka qawaarijta ciidankan waxaa soo saaray oo isku keenay damiirkoodana soo dhaqaajiyey amarkii ka soo baxay madaxweynaha dowladda federaalka mudane xasan sheekh oo u soo gudbay maamulka dowladda Galmudug ee madaxweyne Axmed Cabdi Kaari oo odayga ka yahay madaxweynaha ka yahay la gala midka ugu wanaagsan waa midka aad hadda u diyaarsantiin inaad gashaan waa midka aad hadafka saxda ah iyo halganka saxda ku xaqiijin kartaan
waa midka rool saxa aad ku ciyaari kartaan waa midka qiimo idin yeeli karaa kaas weeyaan waxaan u baahannahay galmudug dawlad leh nidaam leh kala dambayn leh shabaabna uusan dhex joogin oo uusan ku dhex noolayn halgankaasaad kow ka tihiin shalay baa laga sheekeeyey inaad idinku hormuud u ahaydeen wixii ka dhacay maxaa la yidhaahdaa dhuusamareeb iyo agagaarkeeda iyo guraceel iyo dagaalkii al-shabaabka lagula dagaalamayey adinkoo ilaahay kaashanaya oo aan cid idin garab siinaysaa jirin baad shalay ayaad dagaalkaa ku jirteen oo taagnaydeen maantood garab u haysataan oo dawladdii federaalka idin garab taagan tahay oo galmudug idin garab taagan tahay ayay ka wanaagsan tahay inaad dhammaystirtaan tillaabadaad shala bilowdeen halganka adinkaa bilowdeen dhammaystirkiisana qaybta ugu muhiimsanaad ka tihiin waana ku faraxsannahay runtii cududda intaan leeg iyo gaadiidka iyo ciidanka halkan joogaay inuu u diyaarsan yahay inuu la dagaalamo ma ka heshaa wararkeenna facebook ma xiisaysaa arrimaha siyaasadda taariikhda iyo madadaalada haddaba ku soo biir oo falow soo dhow baggeenna facebook like dheh lana sii wadaag saaxiibada muuqaalkan